Saygeeda shaqo ayuu ku maqnaa, xaamile ayay ahayd Kendra Scott, waxayna garwaaqsatay fikrad ah inay samayso lacag iyadoo dhaba ganacsi u sii marayso. Waxay jiiftay gurigeeda oo ku yaala magaalada Austin ee gobolka Texas ee dalka Mareykanka. Waxayna la daalaa-dhacaysay cunuga caloosheeda ku jiray. Kendra Scott waxay bilowday inay samayso agabka ay haweenka quruxda u xirtaan. Sanadkii 2002, Scott waxay jirtay 28 sano, waxayna haysatay lacag ay meel dhigatay oo gaarayay $500 oo ay ku doonaysay inay ganacsi ku furato si ay dakhli badan u soo xaabsato. Markii ay dhashay, waxay go'aansatay Kendra Scott inay dibadda u baxdo si ay ugu ganacsato agabka ay haweenka quruxda u xirtaan oo uu ka mid yahay dhegdhegaha. Scott waxay tiri, markii aan bilaabay ganacsigayga, waxaan dhaymanka ku ridanayay baakado yaryar oo aan la hor istaagayay guri ka guri. Maalinkii igu horeysay waan ka faa'iiday. Maanta shirkadda ay leedahay Scott ayaa loogu magac daray iyada oo qiimaha dhaymanka lagu qiyaasay in ka badan $1 bilyan, waxaana la sheegay in lacagta ay gooni u leedahay ay gaarayso $500 milyan. Scott waxay ku dhalatay kuna soo barbaartay gobolka Wisconsin. Markii ay jirtay 18 sano, waxay ku biirtay jaamacad ku taala Texas, balse sanad kadib waxay ka baxday jaamacadda si ay u raacdo wiil ay jeclayd. Nolosheeda waxay ku soo hartay inay ku noolaato magaalada Austin ee gobolka Texas ee dalka Mareykanka. Scott waxay samaysatay ganacsi u gaar ah muddo 10 sano ah, waxayna samaynaysay koofidaha ay xirtaan dadka qalinka dhanka kansarka maraya. Arrintaani waxaa ku dhiirigeliyay nin hooyadeeda ay wada joogeen oo la xanuunsanaa cudurka kansarka, waxayna ugu deeqday koofidaha qaar. Fikradda ah inay ka ganacsato dhaymanka iyo agabka ay dumarka quruxda u xirtaan ayaa ku dhashay markii ay aragtay baahida ka jirta suuqa oo intooda badan ahaa waxyaabo aan gini gooyi karin, halka qaar kalena ay hayeen kuwa raqiis ah oo aan tayo lahayn. Si arrintaasi ka duwan, waxay bilowday ka ganacsiga dhayman tayo leh oo qiimihiisu dhexdhexaad yahay oo dumar kasta qiimo jaban ay ku heli karaan. Kendra Scott waxay bilowday inay shaqaaleysiiso dad badan, kuwaasoo ka caawiyay in xarunteeda ganacsiga ee Austin inay kobacdo. Inkastoo ay jireen caqabadooyin dhowr ah oo nolosheeda haystay, waxayna furtay markii ay dhashay cunugeedii labaad. Sanadkii 2010, ay laantii ugu horeysay ee ganacsiga dhaymanka ka hirgelisay magaalada Austin, halkaasoo kayd u noqotay alaabaheeda si jumla ahaan ayay ugu daabuli jirtay magaalada inteeda kale. Macaamiisha Kendra Scott waxay ugu baaqday inay ka iibsadaan dhaymanka ayna xushaan dooqooda. Ganacsatada ayaa ku xoomi jiray dukaankeeda si ay u gataan dhaymanka, dhagaha, faraantiga iyo waxyaabaha kale ay haweenka ay quruxda u xirtaan. Maanta waxay gudaha Mareykanka ku leedahay 80 baqaar oo lagu iibiyo dhaymanka noocyadiisa kala duwan, waxayna sidoo kale online ku beecisaa wax soo saarkeeda. Waxaa intaas dheer in dhaymanka ay samayso Scott loo qaado suuqyada caanka ah ee Selfridge ee ku yaala magaalada London. Shirkaddeeda waxaa ka howlgala 2,000 oo qof oo 96% ay yihiin haween. Karen Gibson, oo ah madaxa ganacsiga aaladaha tiknoolajiyadda Mareykanka, ayaa sheegtay in Kendra ay tahay qof ka dhex muuqda xirfadda naqshadaynta. Gibson waxay intaasi ku dartay in sababta ugu weyn ee ka dambeysay guusha Kendra Scott ay tahay in ganacsigeeda uu yahay mid dhab ah oo naqshadiisu loo bogay, isla markaasna ay tahay haweeney da'yar oo dadaal dheeraad u soo gashay hawshan. Waxyaabaha horumarka u horseeday haweeneydan waxaa ka mid ah inay macaamiisheeda ay qiimo jaban ku siinayso nooca dhaymanka ay doonayaan. Gibson, oo ah madaxa ganacsiga aaladaha tiknoolajiyadda, ayaa sidoo kale sheegtay in howlaha deeqda ah ay bixinaysa Kendra Scott ay soo jiiteen macaamiisheeda. Waxayna furtay barnaamij tabarucaad oo qaabilsan oo lagu magacaabo Kendra Cares Program.
Sanadkii la soo dhaafay, shirkaddeeda waxay deeq ahaan u bixisay lacago caddaan ah oo gaaraya $5 milyan iyo kumanaan dheeman ah oo ay ugu deeqday carruur iyo haween. Kendra Scott waxay sheegtay in shirkaddeedu ay ka go'an tahay sidii ay u sii wadi lahayd barnaamijyada gargaarka ah oo ay ku doonayso inay xirfadeeda iyo wax soo saarkeeda ugu deeqdo qoysas badan. Waad ku mahadsantahay daawashadaada. fadlan haddii aad ku cusub tahay kanaalka subscribe saar. mahadsanid.